Assalaamu calaykum daawade waa mar kale iyo muuqaal kale muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa halkee buu u cararay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani waa kuma madaxweynaha ka baxsaday dalkiisa yaa xukumi doona Afghanistan muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channel ku soo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed barta waa xogta qarsoon waxaan ka codsanayaa inaad ugu soo biirto kooxda Taliban ayaa ku dhawaaqday inay guul ka gaartay dagaalka Afghanistan kadib markii ay la wareegeen magaalada caasimadda ee Kabul taasoo soo afjartay dagaal socday ku dhawaad 20 sano wixii ka dambeeyay markii xulafada Mareykanka ay qabsadeen dalkaas dagaalyahanada kooxda ayaa gacanta ku dhigay madaxtooyada dowladda ayaa burburtay kadib markii uu cararay madaxweyne Ashraf Ghani afayeen u hadlay Taliban ayaa warbaahinta Al Jazeera ku yiri dagaalku waa uu dhamaaday Kabul ayaa qalalaasi isu bedeshay iyadoo dadka deegaanka ay ajaanibta isku dayeen inay ka baxsadaan halkaas shaqaalihii garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada ayaa ka cararay xafiisyadooda halka dadku ay ku ordayeen dhanka diyaaradaha sida uu BBC-da u sheegay qof goobjooga Kabul waxay ahayd magaaladii ugu dambeysay oo dalka Afghanistan oo aan ku jirin gacanta kooxda Taliban dagaal socday bilaa iyo maleeshiyaadka kooxda mintidiinta ku qabsadeen inta badan wadankaas taas oo argagax gelisay caalamka Taliban waxay awoodooda xoogeysatay kadib markii dalkaas ay ka baxeen ciidamada shisheeye wararkii ugu horeeyay ee soo baxay ayaa waxay ka hadleen xaaladda ay halka u cararay madaxweynaha dalkaas Ashraf Ghani wararka soo baxay waxay sheegeen in uu cararay dhanka dalka Tajikistan balse Al Jazeera waxay mar dambe baahisay in Ghani xaaskiisa taliyaha ciidamada iyo taliyihiisa dhanka amniga ay u carareen dhinaca magaalada Tashkent oo ah caasimadda Uzbekistan warkaas waxaa laga soo xigtay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka balse weli ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya dalku uu cararay madaxweynaha Afghanistan dowladdiisuna kama aanay hadlin fariin uu Facebook soo dhigay Ghani uu kula hadlayay shacabka dalkiisa waxay ku sheegay in go'aan adag uu ahaa inuu ka baxay Kabul si uu uga hortago in dhiig uu daato fariintaas waxa uu baahiyay wax yar ka hor intuusan ka bixin magaalada Kabul haddii uu dagaal ka dhici lahaa waxaa halis ay geli lahayd nolosha malaayiin qof waxa uu yiri maanta waan ku qasbanaaday inaan go'aan adag gaaro kaas oo ahaa inaan hor istaago Taliban oo doonaya inay madaxtooyada qabsadaan ama inaan badbaadiyo dadkayga aan jeclahay oo aan difaacay 20kii sano ee la soo dhaafay hadda waan ka tagayaa yiri haddii ay noqon lahayd in tiro dad badan oo la xisaabin karin ay dhintaan xilliga dagaalka waxaan arki lahayn musiibada ka dhacday Kabul iyo dhibaato weyn oo soo gaartay 6 milyan oo qof oo ku nool magaaladaas haddaba waa sidee xaaladdu saxmad badan ayaa ka jirta wadooyinka ka baxa caasimadda dalka Afghanistan dadka ayaa isku dayay inay isaga cararaan magaalada xiisad iyo cabsi xoog leh ayaa ka jirta magaalada iyadoo dalalka ajaanibtan ay u xusul duubanayaan inay muwaadiniintooda daadgurayaan warbixino hordhaca waxay sheegayaan in Ghani uu sidoo kale taliyaasha amniga iyo saraakiisha faray inay isaga soo baxaan xaaladdu way kacsan tahay qoraal la soo dhigay barta Facebook kuna socota shacabka Afghanistan ayuu Ghani ku sheegay inuu qaatay go'aan adag oo ugu baxay dalka si dhiigga uusan u daadan wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya inuu isna dalka ka cararay madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Afghanistan Amrullah Saleh Barzani Ilham oo ah xildhibaan laga soo doortay magaalada Kabul ayaa BBC-da u sheegay in dadka rayidka ay wadnaha farta ku hayaan kuwaas oo isku dayaya in dalka ay ka baxaan ama guryahooda ay isku qariyaan ciidamadii hore ee ku dagaalamaya Afghanistan ayaa walaac xooggan ka muujiyay in dalku uu gacan galo cadow ay sheegeen inay la dagaalamayeen muddo 20 sano ah sargaal ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa warbaahinta dalkaas waxa uu sheegay in waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ay dirayso in ka badan 1,000 askari si ay gacan ugu geystaan dadaalada daadguraynta dadka ee Kabul horaantii toddobaadkan Mareykanka ayaa Afghanistan u diray 3,000 oo ciidan si ay u badbaadiyaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaas tani ayaa tirada guud ee ciidamada Mareykanka u diray Afghanistan ka dhigaysa ugu yaraan 6,000 oo ciidan si ku meel gaar ah u joogi doona dalkaas sanadkii 2001 tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa waxay ahayd 110,000 oo askari maxaa dhacay haddii Taliban ay la wareegeen Kabul Taliban ayaa gacanta ku dhigtay magaalada Kabul markii ugu horeysay muddo 20 sano kadib kooxda ayaa meesha ka saartay inay jiri doonto dawlad ku meel gaar ah waxaana ay sheegeen inay Afghanistan ka hirgelin doonaan dawlad Islaami ah afayeen u hadlay Taliban waxa uu sheegay inuusan jirin argoosi samarkaana ay ilaalin doonaan hantida dadweynaha balse ma cadda waxa ka dhici doona gegada diyaaradaha halkaas oo dawladaha shisheeye ay ka daadgureynayaan muwaadiniintooda Taliban waxay sidoo kale sheegeen inay ilaalin doonaan xuquuqda dumarka balse ay qasab tahay inay xirtaan xijaabka dalkaas loogu yaqaano burqa ee astura jirka oo dhan dad badan ayaa ka cabsi qaba in Taliban ay mar kale xididi doonaan xuquuqda ay lahaayeen dumarka
ha yeeshee warar dhowaan laga helay aagaga ay qabsadeen Taliban ayaa sheegaya in haweenkan loo ogoleen inay gurigooda ka soo baxaan ayagoona la socon qof maxram ah, isla markaana shaqaale dumar ah lagu wargeliyay in ragga la wareegi doonaan shaqooyinkooda. gaashaanbuurta NATO waxaa durba ballan qaaday inaysan jiri doonin xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la leeyihiin Kabul, isla markaana ay gacan ka geysan doonaan xiisadda ka jirta garoonka magaaladaas. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kooxda Taliban iyo dagaalyahanada kale ugu baaqay inay dejiyaan xaaladda si loo badbaadiyo nolosha shacabka. bayaan ka soo baxay afhayeenkiisa ayuu Guterres ku sheegay inay qasab tahay in wax laga qabto baahiyaha bini'aadaniyadda, xuquuqda iyo xorriyadda dadka oo dhan. xogayaha qaramada midoobay wuxuu si gaar ah walaac ugu muujiyay mustaqbalka haweenkii gabdhaha yar, kuwaas oo bayaanka lagu sheegay inay waajib tahay in il gaar ah lagu hayo. haddaba waa kuma madaxweynaha ka baxsaday dalkiisa? Ashraf Ghani waxa uu la kulmayay cadaadis inuu iscasilo kadib markii kooxda Taliban ay la wareegeen muddo 10 maalmood gudahood magaalooyinkii waaweynaa ee dalkaas. Ashraf waa nin aqoon-yahan ah oo inta badan xirfadiisa ku qaatay meel ka baxsan Afghanistan ka hor inta uusan ku laaban si uu gacan ugu geysto dib u dhiska dalka kadib sanado dagaal ah. wuxuu 19 bishii May ee sanadkii 1949 ku dhashay gobolka Logar ee dalka Afghanistan, waxaana xukunka uu qabtay 2014 waxaana xilligaas loo arkayay inuu yahay nin la dagaalami kara musuqmaasuqa. ha yeeshee 5 sano kadib, iyadoo la xasuustay eedeymihii ah inay wax isdabamarin ay ka dhacday doorashada, ayaa waxaa hoos u dhacday sumcadiisa. Mr. Ghani intuu xafiiskuu joogay waxa uu isbahaysi la galay madaxiisii fulinta oo sidoo kale ahaa ninka ugu cadcad musharaxiinta la tartamaysay Cabdullaahi, waxaana madaxweyne Ashraf Ghani uu kasoo jeeday qowmiyadda ugu ballaaran dalkaas ee Pashtun. tani markii xukunku uu qabtay 2014 waxaa sii xoogeysanayay kooxda Taliban. Ashraf Ghanina waxaa laga hor istaagay inuu ka qayb galo wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo Taliban ayaa u arkayay dowladdiisa inay dabadhilif u tahay dalal shisheeye. Mr. Ghani ayaa soo bandhigay siyaasado ka dhan ah musuqmaasuqa, laakiin waxaa muuqatay in horumar badan aan laga samayn la dagaalanka musuqmaasuqa. horaantii bishii September, Mareykanku waxa uu sheegay inuu ka laaban doono lacag dhan $100 milyan oo loo qoondeeyo mashruuc tamar ah, isagoo u sababeeyay musuq aad u sareeya oo ka dhex jira dowladda Afghanistan. Ashraf Ghani waxa uu markii ugu horeysay soo shaabaxay 2001 markaas uu hogaaminayay aqalka odayaasha ee Afghanistan ee loo yaqaan Loya Jirga. waxa uu hore u ahaa aqoon-yahan muddo dheer ku sugnaa Mareykanka, waxaana uu mar uu la shaqeeyay Bangiga Adduunka, isagoo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii xilligaas Hamid Karzai. waxaa laga dhigay wasiirka maaliyadda sanadkii 2002 kadib markii ay iskhilaafeen madaxweyne Karzai 2004. waxaa loo magacaabay inuu hormuud ka noqdo jaamacadda Kabul, halkaas oo loo arkay inuu yahay nin dib u habeen wax ku ool ah ka samayn kara. Ashraf Ghani wuxuu sidoo kale hormuud ka ahaa dadka ka soo jeeda qaabka aan wanaagsaneyn ee loo maareeyo lacagta ay deeq-bixiyaashu ku taageeraan Afghanistan. wareysi uu siiyay BBC 2007 wuxuu ku yidhi, markaan annaga dhisayno iskuul ay leeyihiin reer Afghanistan, qiimaha ugu badan wuxuu gaarayaa ilaa $50,000, laakiin markay dhisayaan saaxiibada caalamka qiimuhu wuxuu gaari karaa $250,000. Ashraf waa uu ka tagay xilligan Afghanistan, taariikhduna waxa uu ku qoray madaxweynihii ugu horeeyay koox kaga carara dalkiisa. nabadgelyo daawade.